الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى ما أنت وحين اسكدينا إننا حوجا دول مرنو من أقوال العلماء حكمتي يو أقواش علماء أي لهايين أن دول من مرجرني أي إن شاء الله تعالى ما أنت وقت ير أو كبن وإله سبحانه وتعالى إن سيء أي ندورنا إننا حوجا دول مرنو سيدا أوقتين الأقوال العلماء يوجد فيه علم عظيم واسع جدا والحكم كثيرة واسعة جدا سيدا أوقتين أقواش علماء وحلقة فائدة يعني علمي آدياد وين خبرة آدياد وين وقفكم من الكرة الدنيا دي سينتون ليه هدو الدنيا دونيو يهدو آخرة دونيو إن مركان وحيلين هاي مجلس جرعة وإنه كانوا من أقوال العلماء ما ننتي تطبات كيبا لو مجلس أما هالمجلس بس وكسابسا من أقوال العلماء ولبا كوا أي فائدة كتيران لا شك نشكي ما لها أقواش علماء أوردن إن أي فائدة كتيرين بل أقواش علماء أوردن كوا علم جاي حكمة كسلسن بانكا الله كواس أوردن وحكتيرا علمي يو وحياله مهمة أيا كتيرا محايا لي شيخو أما قفك عالم كإسكمها الله إلى وحكوها الله وحلمي جيسا يفكر ديسا كصباح وفكرتها سوالي بكتمي من العلم فكرتها سو علمي كتمي أيوكها الله مركانا إن شاء الله تعالى إن ير أيام حندوننا تقضي ركوبا إن ندل مرنو دور أقوال إنه كسر قادني علماء أحد الصالحين أيام حكولي هاي يا عجبا من الناس وردتك محاك يا بدن دتك يبكون على من مات جسده وحيقوا أويان قف jasidkiisii uu dhintay qof malakmood intuu u yimi oo naftiisii uu ka qaaday oo macnaha qabuuraha la geeyay qofkaas oo dhintay ayay u ooyayaan walaa yabkuuna ala man maata qalbuhu wa huwa ashad laakiin uma ooyayaan qofkii qalbigiisu uu dhintay isagana ka sii daran almuhim waxa weeye qowlkan waa qowl muhiim ah oo macnaha waxay ku tusinaysaa ninka sheekha ah iyo ninka caalimka wuxuu ku hadlayo badanaaba inay xikmad iyo cilmi ay ka yimaadeen tusaalahaan marka dadka sidaa u eegtid qof markuu ku dhinto markay u ooyaan in badan baynu aragnay dad islaayay oo wax iska dilay hadhowtuna qofkii loo ooyayo ehel qof ka dhintay oo u ooyaya in badan baynu aragnay laakiin kuma fakarin kee fadli badan kan loo ooyayo iyo kale kee fadli badan tusaalahaan qof hadii qof uu ka dhinto uu murugoon waayo ama uu ooyi waayo qofna qof haduu u dhasho uu murugoodo way ka yaabanaa Soomaha qof ka dhintay ma aan murugoon qof Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku siiyay oo qof baa dhashay wad ooyisa oo murugoonisa sabab macnaha aqal xumaa loo tirnaya sidaas oo kale ayay culimadu ama dadka saalixiinta ee afkaarta wanaagsan ee cilmiga leh ayaa waxay nacasnimo ku turiyaan qofka macnaha dhintay in loo ooyo laakiin aan loo ooyin qofka nool laakiin qofkaas uu qalbigiisu uu dhintay waxa weeye wuxuu ku leeyahay cajaban waxa la yaab leh min الناس dadku la yaab ay leeyihiin maxaa yeelay yabkuuna ala man maata jasaduhu wuxuu ooyayaan qof jasadkiisii uu dhintay qof dhintay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka haystay oo halka ku nool daarul aakhirah oo fil qubuur ku nool laakiin adduunyada aan ku noolayn way ooyayaan laakiin uma ooyayaan qof ay arkaan oo laakiin qalbigiisii uu dhintay isagana u daran maxaa yeelay qofka bila iimaanka intuu u nool yahay waxba ka go'aya ee waxba kuma siyaadayaan saas oo kale ahadu saxaaba ridwaanullaahi calayhim ayaa wuxuu dhihi jiray waxa fiican qofka iimaanka lana inuu dhinta u wacan qofka iimaanka aan lahayn inuu dhinta isna u wacan sababta qofka iimaanka leh haduu dhinto khayr iyo wanaag baa ka horeeya isla markiiba jannadii iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wanaagiisa ayuu dhaxalsiinaya ama uu geenaya naxariistiisii maxaa yeelay waxa laga baqayaa qofkaas inuu diintiisa ka noqdo isagoo laakiin uuna ka noqonayn laakiin qofka waxa la yiri waxa u fiican xaalad fil hasana حالة في الأعمال الصالح حالة وعملها ونكسن كسوين ياي إنه أنت أوفيعن يسوق ولبته سينو لانا يو إن شاء الله تعالى عمل ونكسن سي سمينا يو هلو سي دمنا يو لكن ما دام هلو أنا جرانين
garasho la-aanta iyo cilmi qayb la-aanta ayaa waxay keenaysaa qofkan hadeer maadaama la garanayo inuu wanaagsan yahay inuu hadeer dhinto, maadaama uu hadeer uu garanayo inuu wanaagsan yahay. maxaa yeelay hadeer hadduu dhinto qofkaas wuxuu helayaa janno weyn, waxaana la hubaa isagoo wanaagsan inuu dhintay. waxaana u wacan ayuu ku leeyahay asxaabigaasu qofka xumaanta sameeya ama xumaanta la yimi sameeyey in uu hadeer dhinto. qofka xun tusaale ahaan gaalka oo kale waxa u wacan inuu hadeer dhinto, maxaa yeelay gaalku ama qofka xumaanta sameynaya wuxuu sii siyaadsanayaa naar. markuu camalka xun uu sii siyaadsado waxaan uu sii sameynayo macnaha hadhow maalinta yawmal qiyaame marka loo yimaado intuu uu sii siyaadsaday waa loo siyaadinaya. tusaale ahaan qof baa gaal ahaa, hadeer uu gaal yahay 20 sano ama 30 sano ayuu gaal yahay. 30 sano markuu gaal yahay qofkaasu wuxuu leeyahay tusaale ahaan hadeer inuu dhintaa u wacan, maxaa yeelay hadduu 50 sano sii gaadho 20 sano oo kusii cimrigiisa kusii weynaanaysa ayaa waxay siyaadsanaysaa naar weyn ayay siyaadsanaysaa. macnaha naarta waa loo kululeynayaa oo 20 sano qofkanu wuxuu sii siyaadsanayaa naarta in loo sii kululeeyo. markaana intii loo sii kululeyn lahaa waxa wacan inuu hadeer dhinto ayuu leeyahay. markaana ninkan wanaagsan wuxuu leeyahay dadka maxaa la yaab leh, waxay u ooyayaan qof dhintay jasadkiisii laakiin qof qalbigiisii iyo diintiisii ay dhimatay ma ooyayaan. iyadaana mudan, maxaa yeelay qofka bilaa diinta iyo qofka camalka wanaagsan aan sameyn waxay lagu leeyahay xitaa axyaanan wuxuu jecel yahay inuu iska fadhiisto uu iska ooyo, wuxuu qalbigiisa ka dareemayo oo shaqaawaa iska fadhiisto uu iska ooyo, wuxuu qalbigiisa ka dareemayo oo bilaa iimaana oo xumaana waxay dhaxal siinaysaa inuu iska ooyo. sababtaasay u keentay in macnaha gaaladu ay isdilaan, dadka bilaa iimaanka ay isdilaan ay waxyaalaha xunxun ula kacaan ama waxyaalaha xunxun camalada waaweyn xunxun ay u sameeyaan iyagoo moodaya in ay ka helayaan macnaha qalbigoodu inuu ku wanaajinayo. markaan wuxuu ku leeyahay dadku waa la yaab, maxaa yeelay waxay u ooyayaan qof dhintay jasadkiisii, uma ooyayaan qof qalbigiisii dhintay isagaana daran. waxaa qofku iimaan weyn markuu yeesho ayuu taa ka fikirayaa. qofku markuu iimaan weyn yeesho oo ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaanka iyo diinta iyo nuurkiisa uu fahansiiyo, taas ayuu ka fikirayaa. waxa ugu qaalisan adduunyada uu raadiyo ama uu helo waxay noqonaysaa addiin wal-iimaan iyo qalbigiisa inuu ilaashado. قال شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله تعالى ونمر أيين علماء تاريخ ذا كو علمي كود ذالي إن كو مؤلفين تاع كتابة قري علماء تاريخ ذا علماء سدي إنه لاين ونمر أيين إن شاء الله تعالى قصص أيين قدرنا أو قصص أيات جرا إنه تريدون إن شاء الله تعالى قصصا تذكر قصص الأنبياء أنبياء قصص تودي يو قصص الصالحين قصص العلماء قصص العباد والزهاد قصص الأهل الحكم قصص المجاهدين قصص الملوك محايا بقرة الإسلام كحيله القصص بيليهن بقرة صوحها ينتهي ونكسن أو إيمان الدين أو أول أو الجسيال مركان قصص تودا إن شاء الله تعالى وحين قدرنا مركان كشكانو قصص مركان كشكانو أيان قدرنا. شيخ الإسلام ابن تيمية وحليه الذكر للقلب كالماء للسمك. ذكرك يعني الله سبحانه وتعالى الحصول وحويها قلبك سدا كلونكو بيها ويهي. فكيف يكون حال السمك؟ سيبون قنايا حالك أما حالة كلونكو هدي وكسب بيها. سدون قنايا دو لمن يا سماها سلا سوق على قلبك قفكو ويهي ذكرك سلا سوق على أيوه. معناها قفكو ذكره ونلاش عليه. ذكرك هذا يعدد وأكتكتي وحاول إن نلاش عليه يقيمها iyo waxa lahayd iyo hantidaadii aad dayacday oo aad ka tagtay. maxaa yeelay dikrigan qofku uu sameeyo waa hantidiisii maalinta yawmal qiyaame. hanti ahaan baa lagu siinayaa maalinta yawmal qiyaame insha Allah ta'ala marka tagtid waxa lagu siinayaa guryo wada dahaba wada dheemana wada luulu ah. macnaha guryaha adduunka ugu qurux badan ay dhisi karin. macnaha lacagta lagu dhisayna hadii adduunyada tusaalahan lagu dhiso oo kale in ay billions qaadanayso tusaalahan hanti aad iyo aad u badan ee kaga baxso. taasoo kale waxa lagu siinayaa digriga aad samaysay la ilaaha illa allah astaghfirullah ayaa waxa lagu siinayaa intaas oo guriga oo adduunka marka joogi lahayd xitaa hadaa dhisi kartid oo aad billions ku dhis lahayd. waxa weeye wax kasto iska bilaasha
wax kastoo macnaha qofka la iska siinayo nicmadii jannada markaana waxaas waxa weeye waa hanti wuxuu ka dhigan yahay dikrigan hanti buu ka dhigan yahay tusaalahan qofka adduunka jooga hadduu haysto intaas oo lacaga intaas oo hantidan ama lacagtan qofkan muxuu ku falayaa inuu wax ku iibsado inuu guryo qurux badan iyo wuxuu cuno iyo meel uu seexdo iyo wuxuu seexan lahaa iyo wuxuu isku hagaajin lahaa uu ku iibsado samaha ayuu qofkan ayuu lacagtan u haystaa maalinta yawmal qiyaamah adduunka haddii lagu dhaho niyow guryaal waaweyn oo wada dahaba oo magaalada dhan leeg oo wax kastaba ay leeyaalaan oo caafimaadna ay yaalaan aan waxba kaa dhibnayn oo waxna ay kaa maqnayn ama haddii macnaha caafimaadka iyo waxaas ay dhaqaatiir diyaar ah oo macnaha lacagtaadii aad u qadintay wax kastoo aad qadimatay oo dhaqaatiirtaas oo isla markiiba ku daaweynayso ay joogaan waxba kaa bahanin lacagtii aad siinayd oo aad siisayba ka waran qofkaasu macnaha muxuu dareemaya wuxuu dhahayaa dee meeshaasu way wanaagsan tahay sidaasaan doonayaaba soo maha markaana sidaas oo kale jannadu way kasii daran tahay waxaan dikrigan iyo cibaadadan qofka uu sameynayo waa maalinta yawmal qiyaame ayuu waxay u tahay hantidiisii maalkiisii waxa weeye waa abaalmarintiisii waa tijaaradiisii iyo ganacsigii waxaas wuxuu ku sameyn lahaa markuu adduunyada joogay oo caadi ahaan oo diyaar ah ayaa lagu keenayaa maadaama ay aakhiro weliba sii dheer tahay in ay bilaa xanuun iyo waxyaalahaas ay tahay qofkuna uu helayo boqortinimo macnaha dheeliya marka wuxuu leeyahay dikrigan maanta hantida inoo ah ama dikrigan maanta aynu sameeyno ama qofku uu sameynayo ama xusida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xusayo waxaa weeye abaalmarintiisii ama ganacsigiisii beri weeye wuxuu ku leeyahay nin ayaa wuxuu weydiiyey nin dadkii wanaagsanaa ah ayul acmaal afdal keebaa ugu fadli badan camalada kee ayaa camalada ugu fadli badan ayuu su-aashaas weydiiyey wuxuu yidhi waxaa ugu fadli badan amaa taqra'i lqur'aan war miyaadan qur-aanka miyaadan akhriyin wala dikrullaahi akbar ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa ayaa ugu weyn markuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala weynaantaasu maxay keenaysaa inay ugu fadli badnaato inay camalada kale ka weyn tahay in waxyaalaha kale ay ka miisaan weyn tahay soo maaha ha ogow markaana qur-aanka akhri oo ka baadh dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu weyn yahay taas dikriga ilaahay ayaana ugu weyn wuuna u jawaabay markaana dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala xusida ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ay ka mid tahay ama ay tahay kow inaad qur-aanka akhrisid in salaada laftirkeeda waa xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala aad samaysid ama in aad samaysid wax kastaba oo wanaagsan oo shareecadu ku amray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka xasuusinaya aadna ku xasuusinaya taas dikriga way soo gelaysaa inaad samayso wax kastaba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala raali ka yahay nabiga sallallahu calayhi wasallam dariiqadiisa maxaa yeelay waxaa jira waxyaalo fara badan oo macnaha diinta aan ka mid ahayn oo bidca oo lagu soo daray laakiinse qofku markuu akhriyo macnaha dikri ahaan qofkaasu macnaha de ilaahay iyo waxyaalaha yara xasuusinaysa aan aad u xasuusinayn laakiin xoogaa yara xasuusinaysa almuhim waxaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xasuusinaya oo waxaasuna uu sameeyey nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam kaas ayaa dikri badanaaba soo gelaya tacriifka weyn haddaynu iska raacno noocaas almuhim in ilaahay subxaanahu wa tacaala aa xasuusitid weliba xitaa qalbiga xitaa ilaahay haddaa ku xasuusitid adigoona qur-aan akhrin oo istiqfaar akhrin oo wax kala sameyn haddaad qalbiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xasuusid kusoo celisad xasuustiisa iyo weynaantiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbiga ayaa ka xusuusaa waad xusuusaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaad xusuusaa markaad doonaysid macsiyo inaad samaysid oo macnaha oo aad is leedahay macsiyo samey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabkiisa soo xasuusato aad macsiyadaa ka tagto dikriba ku jirtaa dikri ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kusoo xasuusiyey waxaas kusoo xasuusiyey iyo sidaa ilaahay usoo xasuusatay waa dikri waa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaa xusuuso markaana dikriga ha lagu dadaalo si qofku mar kastaba uu ilaahay subxaanahu wa tacaala u xasuusto waxaan kusoo gabagabeynayaa xasan albasri qowl uu leeyahay wuxuu yidhi akthiruu min alistiqfaar waxaad badaysaan istiqfaarta badiya astaqfirullah fii buyuutikum wacalaa mawaa'idikum wa fii turuqikum waxaa ku badisaan guryihiina markaad joogtaan astaqfirullah badiya oo markaa wax cunasaan astaqfirullah badiya oo marka aad dariiqa marasaan
astaghfirullah badiya oo markaa suuqa joogtaan astaghfirullah badiya wa fi majaalisukum markaa majlisyada fadhidaan oo macnaha meelaha la isugu yimi fadhidaan oo meelaha cilmiga laga dhageysto tusaale ahaan intaan cilmiga la bilaabin fadhidaan wuxuu samayn jiray nin ka mid ah salafkii ridwaanullahi calayhim wuxuu samayn jiray beriya macnaha malaayiin qof baa xadiiska dhageysan jiray waa berigii dee ayna jirin waxyaalahan inagu haddeer isticmaalno ee cilmiga iyo waxyaalaha fududeeya wuxuu samayn jiray xadiis ayuu yeedhin jiray dhakaduu ka hayay axaadiista wuxuu yeedhi jiray nin markaana nimanbaa xadiista sii qaadaya oo midbaa halkaasu taagan yahay midna halkaasu taagan yahay kana kaasoo ah wuxuu usii yeedhinayaa kuwii halkaa fadhiyay inta xadiiska markuu aqriyo hal xadiis kuwaa lasii gaadhsiinayo ee dadka taataagan ay sii gaadhsiinayaan intaas isagu iskamuu fadhiyi jirnin kursiga iskamuu fadhiyi jirin wuxuu samayn jiray astaghfirullah uu akhrisan jiray in ilaahay subxaanahu watacaala uu xuso dikriga subxaanallah walxamdulillah intaasuu akhrisan jiray marka majlisyada aa fadhidaan majlisyada aan weli la gelin howlaha intaas weliba iyadana ku dara oo akhriya dikriga ilaahay subxaanahu watacaala wa aynamaa kuntum iyo meel kastaba aad joogtid ilaahay subxaanahu watacaala xus maxaa yeelay idinku garamaysaan markay soo degaso maqfiradu ilaahay subxaanahu watacaala waxaa jira marmar ama xiliyo oo maqfirada dhaafo qofka astaghfirullah hadduu dhaho xiliyo uu qofkaas ilaahay subxaanahu watacaala ka aqbalo ayaa jira xiliyo waxaa jira qofkaas hadduu astaghfirullah waafaqo in ilaahay subxaanahu watacaala dunuubtiisa uu ka dhaafo markaana qofka markastaba xusa ilaahay subxaanahu watacaala ee markastaba astaghfirullah badiya waxaa laga yaabaa inuu ku beegmo xili ilaahay subxaanahu watacaala oo qofka uu dembigiisa dhaafayo ducadana uu ka aqbalayo hadday xiligaa ku beeganto qofka markastaba ilaahay xusa waxa weeye qofkaasu macnaha wuu faa'iidayaa waxaana ugu weyn qofku markastaba niyadda inuu ku hayo inaad niyadda ku haysid in ilaahay subxaanahu watacaala kuu dambi dhaafo inaad jeceshahay in ilaahay subxaanahu watacaala kuu dambi dhaafo iyo inaad dadaal samaysid oo aad astaghfirullah badisid qofka astaghfirullah badiya oo qofkaas oo gaadaya xili ilaahay subxaanahu watacaala dunuubta uu dhaafo siduu u haleelo oo u waafaqo kadibna ilaahay subxaanahu watacaala dembigiisa uu u dhaafo kaas qofkaa gaadaya wuu ka duwan yahay ama wuu ka ajar wan yahay midaanan baddaab ahayn aanan u jeedin aanan waxba gaadayn aan iska qaafil ah labadaas isku ajar maaha bal iska badaaya haddii aad qofkaa noqoto ilaahay subxaanahu watacaala wuu kuu dambi dhaafayaa wuuna ku waafajinayaa wey maxaa yeelay waa dadaal meeshii ugu dambeysay haddii qofku dadaal meeshii ugu dambeysay uu sameeyo eena meelna ka dambeyn ilaahay subxaanahu watacaala qofkaas inay waxaan run ka tahay ayay caddahay qofka wixii ay run ka tahayna oo uu sameeyo oo samayntii la yimaado wuu gaadhaa waxa weeye waa asliyan wuu gaadhaa shaki kuma jiro markaana wuxuu kusoo koobanaa maanta intaas waxaan isku dardaarmanaa inaynu istikfaarta badino inaynu dikriga badino maalmaha ugu khayrka badan habeenada ugu khayrka badan saacadaha ugu khayrka badan xiliyada ugu khayrka badan xiliyadaas oo dhan inaynu istikfaarta iyo dikriga badino insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu